السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا صاحبات halkan iga daawanaya meel walba waa joogtaan iyo silbo muuqaalkaygu uu markay idin soo gaarayaba muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa colaadda ka soo cusboonaatay magaalada Gaalkacyo maxay colaadaanu daaran tahay maxay dhinacyadu ku dagaalamayaan maxaa xilligan ku soo beegay colaadda magaalada Gaalkacyo ayaynu si gooni u fiirin doonaa waxaan fiirinaynaa ama aynu dul istaagaynaa sida magaaladan Gaalkacyo muddooyinka hadda la soo dhaafay uu amnigeedu u ahaa mid xasilloon isla markaasna ka fiican siday ahaan jirtay in xilligan colaad loo soo waarido lagu dagaalamo ciidamo la soo tahriibiyeyna la keeno isla markaasna ciidamadii maamulka Puntland ay dagaal ba'an ku qaadaan xero ciidamada BSF ay ku leeyihiin magaalada Gaalkacyo maxaa sababay bal arrimaha ayaynu falanqayn doonaa dhinacyo kala duwanna waynu ka istaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo salbo muuqaalkaygu uu markaa idiin soo gaarayaba taariikhdu waa 6 Agoosto 2026 war markii ugu horeysay maanta hawada ku kulmayno dufadan muuqaalka idiin soo gaaray muuqaalka lag saara channelka isku xira si aad ula socotaan muuqaalada aynu halka kusoo gudbinayno maalin walba iyo weliba goor walbaba aad ayaad mahadsantiin haddii aynu bilowno magaalada Gaalkacyo labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa ka socda colaad u dhaxaysa ciidamo taabacsan maamulka Puntland iyo ciidamo ka tirsan BSF oo ayaguna markaas sheeganaya inay hoos tagaan ama inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya marka labadaas dhinac ayaa ku dagaalamay gudaha magaalada Gaalkacyo dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa wuxuu ahaa dagaal saacado kooban socday waxaana suura gashay in ciidamada taageersan maamulka Puntland ama ciidamada booliska Puntland inay markaas la wareegaan xarun ay ciidamada BSF ku leeyihiin magaalada Gaalkacyo waliba qaybta ay markaas Puntland ay maamusho waayo waxaynu ogsoonahay in magaalada Gaalkacyo ay laba u qaybsan tahay qaybna ay Puntland markaas ay tahay qaybna ay markaas ay galmudug ay tahay marka qaybta Puntland ay ku taalay xaruntii shalay lagu dagaalamay isla markaasna ay ugu dambeyntii la wareegeen ciidamada booliska ah ee maamulka Puntland oo markaas ka amar qaadanaya Saciid Cabdullaahi Dani ciidamada BSF iyo maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani muddooyinkii hadda la soo dhaafay dagaalo kala duwan ay dagaalamayeen waayo waxaynu horey u aragnay inay ku dagaalameen dhanka bari haddana waxaynu arkaynaa inay ku dagaalamayaan dhanka mudug marka Saciid Dani iyo BSF intii uu xilka joogay Saciid Dani marar kala duwan oo badan ay markaasi ay dagaalameen inta badanna waxaa dagaalkaasi la aaminsan yahay inuu salka ku hayo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Ilmo Diyaano iyo waliba Saciid Cabdullaahi Dani haddana Asad Diyaano waa mid ka mid ah shakhsiyaadka daacadda u ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud marka la fiiriyo colaadda Xasan Sheekh Maxamuud uu xilligaani uu ka hurinayo magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug ayaa waxay tahay colaad uu Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayo inuu saameyn ku yeesho gobolka Mudug iyo waliba magaalada Gaalkacyo wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuud uu kaashanayaa mucaaradka Saciid Dani oo markaas ka soo jeeda gudaha magaalada Gaalkacyo ama Puntland oo dhan saameynta uu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu Puntland uu ku dhax yeeshana waa mid ciidan xilligan laakiin ajandaha ugu weyn ama qorshaha ugu weyn ee mustaqbalka laga leeyahay waa saameyn uu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu Saciid kula gorgortamo ama in uu doorashada maxaa la yiraahdaa federaaliga ah ee Soomaaliya uu markaas Saciid uu ku challenge gareeyo gudaha Puntland Xasan wuxuu doonayaa inuu ciidamo xoog leh uu ku dhax yeesho labada gobol ee bariga iyo waliba mudug ama bari iyo mudug si markaas doorashada dawladda dhexe ee Soomaaliya uu markaas Saciid Dani ugu qabsan karayo ama rag saaxiibadiisa ay xildhibaano uga soo heli karayaan gudaha maamulka Puntland marka la fiiriyo ajandaha rasmiga ee meesha ka socda iyo waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud xilligaani uu abaabulayo gulfiye colaadeed oo markaas la dhex marinayo ciidamada BSF haddii ay tahay midii bariga iyo haddii ay tahay midaan mudug hadda ka taaganba waa inuu Xasan doonayo inuu Saciid Dani uu qaar ka dhigto ama uu ku qabsado kuraasta taala maxaa la yiraahdaa maamulka Puntland ajandaha ugu weyn ee meesha yaala iyo waxa ugu weyn ee lagu dagaalamaya waa in markaasi lagu qabsado Saciid Dani kuraasta uu asagu uu soo xulanayo oo wixii la oran jiray ku qabso ku qadimaysay si marka ajandaha loo gaaro waa in marka hore ciidan iyo awood lagu dhax yeeshaa gudaha maamulka Puntland markaas ayaa Saciid lagu la gorgortami karaya ama waxa uu Saciid doonayo inuu ka sameeyo bari iyo mudug
وحسن شيخ محمود وكو قبسان كرايا هدي وهايستو عيدا أساga ka amar qaata oo gudaha bari iyo weliba mudug ku sugan ajendaha meesha yaalla waa ajenda noocaaya marka qorshaha uu xasan wato waa qorshe noocaaya dhanka kale marka la fiiriyo Siciid Cabdullaahi Deni asaguna wuxuu diidan yahay in awoodda Puntland markaasi lagu qabsado si markaasi asaguna uu Puntland uga dhigto meel uu ku gorgortami karayo iyo meel uu xasan sheekh maxamuud uu ku dhig bixin karayo haddii doorasho dadban la aadana Siciid Deni wuxuu doonayaa inuu sidiisii dambiil uu ku soo gurto xildhibaanada yaalla kuraasta xildhibaano oo markaasi yaalla gudaha maamulka Puntland Siciid Deni xasan sheekh maxamuud oo ahaa saaxiibo ay danta iyo duruuftu ay kala fogeysay ayaa marka xilligaani waxay ku dagaalamayaan kuraasta doorasho aan la aqoonin goorta ay dhacayso iyo weliba sida ay u dhacayso madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa marka shalay kaga adkaaday xasan sheekh maxamuud gudaha magaalada Gaalkacyo isla markaasna wuxuu cagta u mareeyay ciidamadii BSF iyo weliba kuwa kale oo lagu daray oo laga soo xawilay magaalada Muqdisho mana ahan markii ugu horeysay oo ciidan uu xasan sheekh maxamuud inta soo tahriibiyo uu geeyo deegaan aysan aqoonin markaasi cagta la mariyo hore waxaynu ogeyn xasan sheekh maxamuud uu diyaarada ku daabulay ciidamo uu geeyay Raas Gamboni si uu markaasi Axmed Madoobe uu sugu dayo inuu ku qabsado maamulka magaalada Kismaayo iyo weliba Jubbada Hoose laakiin dagaal ba'an oo ka dhacay Raas Gamboni ugu dambeyntii sidaan oo kale ay ciidamadii xasan uu ka soo diray magaalada Muqdisho ayagoo farxada ay galeen gudaha dalka Kenya marka wixii ka dhacay dhanka Raas Gamboni ayaa la oran karayaa weeye wixii hadda ka dhacay magaalada Gaalkacyo maalintii shalay ahayd maantana waxay maamulka Puntland ay sheegayaan in farxadka ciidamadii laga soo diray Muqdisho iyo kuwii BSF markaasi laga baadi goobayo duleedka iyo weliba gudaha magaalada Gaalkacyo waxay falanqeeyaashu aad isku weydiinayaan ma u shaqayn karta xasan sheekh maxamuud istaraatiijiyadan cusub ee uu la yimaaday ah ku qabso ku qadimayside iyo in meel walba la geysto ciidamo markaasi lagu challenge gareeyo maamulada xasan sheekh maxamuud mucaaradka ku ah maxayse arrintaas ay ka goyn doontaa haddii xataa doorashada dan la aado waa su'aalaha ay dadku markaasi ay isweydiinayaan dhanka kale magaalada Gaalkacyo ayaa amnigeedu waa asaguna su'aalo badan ay ka imaanayaan waayo Gaalkacyo muddooyinka hadda lasoo dhaafay amnigeedu aad ayuu u wanaagsanaa in hadda colaad dib loogu celiyo iyo in dagaal uu ka dhaco ayaa waxaa loo arkaa in xaaladda amni ee magaaladaas ay qalqal xoog leh ay geli karto waayo marka la fiiriyo Gaalkacyo qaybta hadda galmudug soo jirta ama qaybta hadda galmudug ay maamusho dowladda dhexe ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud saameyn xoog leh ay ku leeyihiin waxaana marka la fiirinayaa xasan miyuu mar kale dagaal ka soo abaabuli doonaa dhanka galmudug oo colaad Gaalkacyo gudaheeda ah ayaa bilaaban doonta iyo amni la'aantii lagu yaqaanay Gaalkacyo iyo sida in la dilo dadka haldoorka ah ee gudaha magaalada Gaalkacyo bis xaaladu saan ayuu ku dhamaan doontaa ayaduna waa su'aal kale la isweydiinayo laakiin amni la'aan walba oo ku soo korodha magaalada Gaalkacyo waxaa la oran karayaa waxaa mas'uuliyadeeda qaadaya xasan sheekh maxamuud iyo weliba ciidamada uu ka soo tahriibinayo magaalada Muqdisho waayo wuxuu xasan dagaal hurinayaa وحسن علاad ka shaqeynaya hatta asaguna haysanin mandate sharci ah oo uu dalka ku maamuli karayo xasan sheekh maxamuud ma haysto sharci rasmi ah oo hatta ciidamada uu ku maamuli karayo dagaal uu ku gali karayo isla markaasna uu ku qaadi karayo talaabooyin waayo xasan mandate ma haysto inuu hadda meesha joogana waa nin kusima ah oo inta laga dooranayo madaxweyne kale loogu talagalay dalka inuu gaarsiiyo maxaa la yiraahdaa doorasho iyo weliba xil gaarsiin ma haysta awood sharci oo xasan xilligaani ku qaadi karayo colaad iyo weliba waxyaalaha hadda uu ka shaqeynayo ee barakicinta iyo colaada gudaha dadka Soomaaliyeed marka si guud colaada meesha ka socota waa mid sidaas ah qasaarun ilaa hadda uu yar yahay dhaawacyo ay u badan yihiin laakiin waxay xoog u sheegayaan in hub aad u tiro badan ay ciidamada BSF ay kaga tageen xeerada shal laga qabsaday maantana waxaa la aaminsan yahay in maamulka Puntland ay soo bandhigi doonaan hubka ay ka qabsadeen ciidamadii BSF iyo weliba kuwii laga soo tahriibiyay magaalada Muqdisho inta ayaan muuqaalkan ku soo koobaya bal waxyaalihii dambe oo ka soo kordha magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug bal muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiirin doonaa assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh